magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa si weyn saaka isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo lulaya calanka limiga xisbigaasi caanka ku yahay iyo caleemo qoyan waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ay ku taageersan yihiin musharaxiinta xisbiga wadani waxaana kala soo qayb galay isu soo baxaasi taageerayaashaasi musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ee xisbiga wadani iyo xubno kamid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi waxaa halkaas ugu hadalbaaba ka jeediyay xubno kamid ah hoggaanka xisbiga wadani iyo qaar kamid ah madaxda dhaqanka ee Soomaaliland 13 bisha November maalinta guusha maalinta aynu farteena ku cilbaxayno maantana waxaan idinka rabaa ballan kale oo idinku horkacayo isbeddelka aad arkaysaan ma raacna oo ma rumaynaa yaynu dooranaynaa yaynu rabnaa yaynu daba taaganahay Soomaaliland isbeddel bay u baahan tahay Soomaaliland isbeddel bay u baahan tahay isbeddelkuna waxa maanta haya waa wadani maxay noo ballana ayaan ka kaxaynaa wadanka kulmiyaan bedelana alfarteena waa wadani waa xisbi reer wal oo Soomaaliland daba laga helayo reer gooni iskama leh inoo ballana warqadoon meel ku wada ridnaa inoo ballana madaxdeennuna inoo ballana sidaas inoo ballana assalaamu calaykum musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani oo madashaasi ka hadlay ayaa ka falceliyay eedeymo uu musharaxa kulmiye uu arbacadii shalay ka jeediyay magaalada Burco kuwaas oo ku eedeeyay in xisbiga mucaaradka wadani laga taageeray magaalada Muqdisho waxa kale lagu duceynayaa kulmiye been abuurka kulmiye intuu been abuuro ayuu haddana isagii rumaystaa beentu abuuray waxaas leeyahay inay ka waantoobaan warka ay isku kabkabayaan haddaad daawateen cajaladii yarayd ee xamar laga sameeyey waxaad maqlayseen in dadka magacayga xitaa may aqoonin nin baa ka hoos hadlayey wuxuu laa ciradhaca waxaannu haynaa ninkii lacagta diray waxaannu haynaa ninkii hawsha galay ee dhammeeyey intaba waa laguu yaqaannaa waxaan leenahay kulmiye wanjal madaxweyne laguma noqdo beenna laguma noqdo waxaa loo baahan yahay inaad barnaamijkaaga ka iibiso dalka saaxiibkay muuse kaadh uu yaqaana kaadh keliya waa kaadhkii uu xoqay 1994kii waxaan isweydiinayaa qofku wuxuu ku guulaystaa ama ku guuldarraystaa waa taariikhdiisa marka waxaan leeyahay xamar yaynaan waxba ku meeraysan nin walba taariikhdiisa waa la yaqaannaa waxaa ilaahay mahadiya shalay markay lahaayeen arrintaa ka hadlayeen kulmiyaa ku dhawaaqay markuu Soomaali weyn ka hadlayey ha noolaato muusena uu dhinac fadhiyo marka waxaa leeyahay quluubta kulmiya waxaa ku jirta Soomaali weyntii dadka ku eedaynaya ilaahay baa ka shifay bal hadda waan xasuusiya muuse erayo kooban saaxiibkay muuse waxaan leeyahay miyaad ilowday inaad madaxweynaha hadda ku dhisay ee kootaa kuugu xidhay inaad musharax noqoto ee kootaa kuugu xidhay inaad guddoomiye noqoto inaad jidgooye u gashay ood la beegsatay dil siiraanyo miyaad ilowday مختار إسماعيل علي تلفزيون كيونيفرسال مقالة بورما حرمت قبل كأوضل